بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نحسن داود الكشور وهذا برنامج كحساب بدن لا ترتك على بركة جناحسك جامعة دالك أو سنة كيش أنا مريا وبرنامج شوكته وملقلي بقى عالمي بريمير باك وحكوا كل ما ردك الدنيا جامعة برنامج هو حقيقي بقادنا ينك بدن دوريو تمن جامعات وحلو تثمين مشاريع الدون دوري لواتن مشروعة لما بجامعات الدون اللي هذا قول الشمالان أردك كل شاطئ يالكو ترتمي دونتا إن كم إذا أي قوليشن دونتا waxaan u yeeri doonaa barnaamijkan inaynu gudagalo gudoomiyaha guddiga kala saarida ahna khabiirka barnaamijka inta badan ana gurigiisa cuntiisa kale Professor Mubarak Ibrahim R waxaan u yeeri doonaa ganacsade Cabdiraxmaan Buraale waxaa kaloo u yeeri doonaa ganacsade Cabdi Yusuf Ar oo ah mulkiilaha shirkadda Sagalchat waxaan yeeri doonaa ganacsade Ismaaciil Meecaad waa kuma Cabdi Yusuf Ar Cabdi Yusuf Ar waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee shirkadda caanka ah ee Sagalchat waxa uu hore uga soo shaqeeyay shirkaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka shirkadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu Cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaanu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa asaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group waana asaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoon-yahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar waxaan gudageli doonaa barnaamijka xisaab badan ee tartanka hal-abuurka ganacsiga oo ah barnaamij xisaab badan oo sanad kasta bishan oo kale aynu qabano bishan baragse rabaadka loogu talagalay in bulshada reer Soomaaliland lagu gudbiyo arrimo la xiriira dhinaca aqoonta iyo tartamo la xiriira hal-abuurka bulshada reer Soomaaliland dhinaca doonaha noqdo tartanka sanadka wuxuu noqon doonaa mid lagu tartamo hal-abuurka ganacsiga marka laga hadlayo dhinaca hal-abuurka ganacsiga tartankani wuxuu noqonayaa tartankii saddexaad sida aan filayo waxaan ardaydii ugu horeysay ku guuleysatay mashruucii digaaga sidoo kale oo ka socday gobolka Awdal sanadkii xigay dhinaca ganacsiga markii laga hadlayo iyaguna waxa ku guuleysatay shirkad samaysay shirkad qashinka ka qaada farmasiyada iyaguna ahaa mashruucii labaad ee dhinaca ganacsiga kana wuxuu noqon doonaa kii saddexaad iyadoo ay u dhaxeeyeen laba barnaamij oo hore iyaguna ahaa barnaamij adeega bulshada lagu tartamayo dadka jilicsan lagu caawinayay iyo barnaamijkii kale teknolojiyadda casriga oo lagu tartamay hal-abuurka dhinaca teknolojiyadda la xiriira gruubku markuu halkan yimaado waxuu soo bandhigi doonaa qorshaha iyo mashruuca ay ka qayb galayaan tartanka marka intaasi ay bulshada la wadaaga guddida halka fadhida ayaa bal mashruuca fikirkooda iyo sida u arkaan waxay samayn doonaan way qiimeyn doonaan dhibcay siin doonaan kadibna waxa u bilaabmi doontaa ardaydaasi waxay samayn doonaan presentation bay samayn doonaan guddida ayay ku wareejiyaan guddidaas su'aal weydiin doontaa sidoo kale dadweynaha halkan fadhiya ayaa iyaguna markooda qayb ka noqon doona marka u dambaysa oo u codayn doona iyaguna bal cidda u arkaan inay tahay ciddii u qalmisay inay guulaystaan waxaan u yeeri doonaa kooxda Super Cleaning Company oo ka socota jaamacadda Badar waa Hibo Axmed Xuseen iyo Amal Aadan Cawad saxabkii gula soo dhaweeyay presentation bay samayn doontaa mashruuca ay wadaan ee sanadka tartanka ka qayb galayaan waxay naga iibin doontaa bulshadu yahay mashruucaasi waxaan jeclahay ku soo dhaweeyo mashruuca Hibo لا مقعد حويه جباح بسيط
هذه أقول لكم مش معقول يعني تسمع كذا طيب خلاص بس إنه كوبات كمية وإحنا يهدا سوبر كلين كوميرشال كلين سيرفيس كمية بوح كمية نظيفين كلية تبقى خاصة نقد دونين نظيفين بابها جناحسية كمية بوح وأليكسون دونات كلين سردوني يكون ما تسردون يسووا أودر دونات شغالين يسووا بابها جناحسية وصار نظيفيا كمية بوح وسين دونات شغالين ستببر target customer-kayga company-ga wuxuu noqon doonaa dadka iskale ama building ownerska sidoo kale dadka maamulayaasha ka ah goobaha ganacsiga doonayna inaan wadiifino target location-kayga wuxuu badan doonaa marketplaces-ka ama meelaha ay ku badan yihiin goobaha ganacsi ujeedada nagu dhalisay inaan company-gan sameeyno waxaan markii aan aragnay inay soo badanayaan mall-iska dhismayaasha waaweyn ay horumarayaan goobaheena ganacsi offices-ku ay sii balaaranayaan waxay nagu dhalisay in ay jirto baahi aad u weyn oo loo qabo in la helo company commercial cleaning service u khaas ah qalabaysan shaqaalihiisu ay xirfad leeyihiin equipments iyo chemicals ku haboon nadiifinta lagana maarmo caqabadaha ka imanaya in lala macaamilo individuals imka shaqada qabto inta badan haweenu badan magaaladeena sadexad baan ugu dhalisay company-gaasi baahida aad ka weyn marketplace-ka taala inuu daboolo in doonana company-gayagu ujeedooyinka ugu waaweyn aan ka leenahay company-gayaga ka waxa ka inaan profit sameeyno goolkayga koobaad waxa weeyaan inaan profit sameeyno waxaan doonaynaa business-kan inaan ka macaashno sidoo kale inaan dhaqaalaha wadanka wax ku soo kordhino tan labaad waxa weeyaan in aanu customer-kayga aanu qancino anagoo siinayna cleaning service aad u dhiib ah aad u qoto dheer chemicals iyo equipments haboon loo adeegsanayo shaqaalihiisu ay xirfadaysan yihiin isla markaana lagaga maarmo baahida aadka u weyn ee marketka taala inaan daboolo sidoo kale waxaan doonaynaa gooliska aanu ka leenahay company-gaygan waxa ka mid ah inaanu shaqo abuur u sameeyno dadka ay xirfadoodu yar tahay ama experience-koodu yar yahay ay ku adkaatay inay shaqo ka helaan company-yada kale ee magaalada Hargeysa ku yaala wadameen waxaan doonaynaa inuu aasaasno company-gii koobaad ee commercial cleaning service u khaas ah inuu nadiifiyo goobaha ganacsi oo quality-giisu sareeyo shaqaalihiisa wata sidoo kale ku haboon oo daboola baahidaas una noqda opportunity aad u balaaran dadka ay khibradoodu yar tahay ama ay aqoontoodu ay ku filnaan weydeen inay shaqooyin kala helaan aad u mahadsantahay ibo aad buu mahadsantahay ama la jeclaan in halka soo istaagto waxaan ku wareejin doonaa xubnaha guddiga bal mashruucaasi ay soo bandhigeen ka hadlayeen in adeeg suuq marketka ka furan oo ah qaybta nadaafadda xubnaha guddiga halka ku wareejin halka fadhiya waxaan ugu horeysiin doonaa Cabdiraxmaan Buraale aan jecelahay inuu bal qiimeeyo ama markii horeysa bal dhibcaha uu siiyey sida uu arkay mashruucaasi Cabdiraxmaan had siisay tiimka ka socda jaamacadda Badar waa marka koowaad horta waan hambaliyaynayaa waanan u baarigayaa waxaan rajaynayaa guul waxaan siiyey 60 عبد يسوع بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad hambalyadan la qabaa guusha dhamaantood waan u wada rajaynayaa teamkani hortaagan runtii mashaariicdan la soo qoray aad baan u soo eegagnay marka lagu daray imika soo jeedinta ay soo jeediyeen iyo qoraalkii akhriskii aan soo akhrinay anu waxaan siinayaa 57% boqolkiiba 57 waa tahay waxaan ku soo dhaweynayaa Ismaaciil Micaad waxaan siiyey kooxdan 55 waa tahay waxaan jeclahay wajigii labaad gudubno waxaan ku wareejin doonaa xubnaha ganacsiga khibrada halka fadhiya bal ganacsiga soo bandhigay kooxda beer ka socota super community company qaabku u socdo saameyntii waxba ka faa'iideen iyo su'aalo xiriir ka weydiiyaan waxaan kala bixi doonaa xubnaha guddiga halka fadhiya iyo ardayda halka joogta su-aasha koowaad ee weydiinaya laba su'aalood baan isu raacinayaa waxa weeyaan waxyaabaha lagu kala xulayo guulaystayaasha waxa ka mid ah inuu ganacsigan aad soo bandhigaysaan ama arrintan ay imika noo soo jeediseen ay tahay hal abuur cusub oo Soomaaliland ku cusub taayna cadeysaan waan doonaynaa qodobka labaad mashruucani inuu yahay mid profitable oo laga faa'iideeyo xisaab ahaan ugu qanci
سؤال كوباد يعني مشروع عصبي هنا نتوقع قنعيو مرك كوباد كمان وحو خاص نقول دارين نظيفية كلية كوبها كوميرشال كلين سيرفيس هرجيسة ويشيران كمبانية كلا أو كنت خاصين ريسيدنشال كقبطان أو واحد كم إذا كمبانية نظيفية كلا ولا هو كمبانية كلا دورين كسنة ترى بدنين كمبانية ذي سوى حيسميان إن أي شغالها قدران جوريها سيوصل نظيفيان لكن سمشرو كمباني كلية أو كوميرشال كلين سيرفيس أو هرجيسة وخاصين وكلي ونخاصة كليتين وجوابها جناح نظيفيو تاسع كده جسنا نقضى كمباني يجون كيكو بعد نقضى كوميرشال كلين سيرفيس سؤال شل بعد هنا نعضينه كمباني يجون بروفيتابل هاي ما كهري استيميشن كانوا سميني أما برايسنج كسيرفيس كيك هذا كبلابو برايسنج كهو حنو إيه جدونا وحكو حرنت هاي كل بق أنت ولاقي هاي أوفيسكو شغالة لقى قبني أنت هلاك هاي إمبلمنت كمان شغالها جلي أنت هلاك هاي وقت جي قاعدة نسوا وحيابها صدقني سيقولوا إيه جيو وحنو كلا قايبين كراينو سمول هاي يا ميديوم يا لارج مركا سمول كيلا ميديوم كو حنقول كرتاب $1 إلى $2 أنت وده حيسا هل كي لارج كتهاي $2 إلى $6 أنت وده حيسا مركا أنا أقول حوجة صارنا ما دام aad badan yihiin oo helno kuwa small ka ama small offices kana ka shaqeyno anagu xooga saarna estimation kaanu sameynay waxaanu doonaynaa bishii inaanu nadiifino ilaa 20 goobood oo business places ayna nadiifino 20 ka goobood hadan xisaabino inta naga soo galaysa waxa noqon kartaa $3,800 $3,800 kharashka bishii anaga running business kaygu ku socda waxa noqonaysaa $1,900 $3,800 na soo galay hadii laga jaro $1,900 waxa soo haray $1,900 kale hadii aan inta ka sii goyno equipments kanu adeegsanayno ama kharashka naga baxay haday noqoto glass cleaners ama qalab كن أديكسنا خرج كنا جاب حياة وإحنا قلنا يا $1 كل يسقال كي $1 وحنا كشرنا $1 وحسوها يكون يستيد $1 ممكن سميش كوبادا نسميني أنا كوهم وين هنا وهلا كون يستيد $1 برافيدا business كساوي حليه هي business model أما قاب وbusiness كيس وش قيسان إذا واحد إذا نقارن إن commercial cleaning أما مهرها يميلها جناعسية إن ربطان إن نظيفسان لواتن شركات إن هلي دونتان واتسيق الشيء إن سيدابة هذول هليسان إن يار لها هذا إن محل هذا حديث صالحان وكلا طبعا هشان أما عطشان هشان أما أدويدان انتباه بدأ كرتانو مارت بيزنس كينو سيجري كرا طلبات إن competition ka waxaa tiraadeen ma jiro shirkad kale oo commercial ka samaysa waa laga yaabaa inaydan aad u baarin laakiin way jiraan ma sabadna oo ma aha wax aad u soo shacbaxay marka taa lafteeda ma daraasayseen caqabadaha idinka hor iman kara ganacsiga waayo waxaa ku sii jira dad hore u shaqaynayay oo in badan laga yaabo in lagu qanacsanaa ama aan lagu qanacsanaynba marka tusaale ahaan cabdi oo kale oo shaqaale u shaqaynayay sideebaad ugu qancinaysaan inuu idinka idiin dirto oo shaqaalihiisa u fasaxo su-aasha u dambaysa haddaan kaaga jawaabo ee ah yacni saad ugu qancin karaysaa cabdi inuu yacni qofkii u shaqaynayay hore intuu ka yimaado aniga iga dalbado waxaa jirta horta individuals baa loo shaqeeyaa oo yacni de badanka raggeenu way ka marmarsiyoodaan oo de ma cleaning ma samayn karaan laakiin waxa badan la shaqeeya waa dumarkii hadday shaqaynayaan shakhsi baad kala tiin kambanigayagani waxaan hubaa yacni uu daboolayaa baahida ah imika waxa laga yaabaa inaad siisid shaqaalihii ku shaqaynayay $100 oo kale $100 si directia ay qofkii kaaga yacni si indirect ayaa lagaaga qaadaya saabuntii shaamboogi jaafeerkii dhitooshii masaxaadii iskoobihii wixii baada isu qaba way ku imanaysaa just wixii un bay kaa nadiifinaysaa iska tegaysaa laga yaabaa yacni إن حتى information بكويا لحفيز كاجي information كاينة ورور كاجي ترى أمانة أنت أنا تكبحين أترى هذه النظيفة أضر لحفردية وحياة بدن بدون يسأل لجو إلاليو مركا وحنقول قنعين كرا عبدي وحنلاقي هاي عبدي كمبني جاي جاني وحويه كمبني مركو هراي سوق قلب كيسي وحنكوصل شيء جاي لين وحلقو نظيفيو يسوق مركو هراي سوق قبا وحنقول قنعين كنايو كلا كمبني جاي جوا كمبني يعني عيمسة كمرة كلها ما هكي هاي insurance جاي حاجة لا هذه لكن يعني إن وحاجة information كاجي وحاجة أنكوها بيو لون الراعي كرو ميل دي يعني ومرتعه ونقضه وأن حفيز أنا وهاي يعني كمبني جو دي صار نقن كرتو sidoo kale waxa kugu qancin karaa yani alaabta direct lagaga qaaday
يعني indirect kaaga baxaysay anigu si toos ah baan kaaga qaadi karaya marka imika saas oo kale waan kugu qancin karaya su-aasha kale ahayd muxuu businesskiinu ku badbaadayaa haddii aad inay aad weydaan 20 goobood horta marka koowaad sidaan wada ognahay 20 office marka loo eego offisyada ama meelaha lagu shaqeeyo suuqeena kaliya inta ay noo jira 20 intay ka bataan waliba dhowr boqol gaarayaan sadirsidu waan hubnaa in 20 aan heleno businesskaygu wuxuu ku survive garoobaya 15 goobood oo ganacsi hadduu bisha kaliya ka shaqeeyo waliba 15 ka haddii ay yihiin kuwa regular sidoo kale waxaan qabanaa regular kaliya maaha weekly inta doonayso waxa dheeraan doona monthly haddii doonayso waxa dheeraan kara haddii aad one time aad doonayso inaan ku hagaajino marka aad iyo aad baan hubnaa inaanu heleno 20 iyo wax ka badan ba businesskaygu wuxuu ku survive garoobaya 15 goobood kaliya regular haddaan bishii helno inaanu ka shaqeynaa maan nadiifino waxaan aad ula dhacsanahay runtii qaabkaad soo jeediseen su'aalaha iyo su'aaladan weydiin doonana waxaan rajeynayaa inaad igu qancin doontaan inaan grade-ka kordhiyo gabagabada presentationkiinaasi laba su'aalood baan qabaa kuwii hore waa laydin weydiiyo ku laaban maayo su'aasha koobaad waxaa weeye percentage cad oo profitkiina ku dhufsanaysaan miyuu jiraayo shaqadan qabanna boqolkiiba intaasaan ugu talagalnay inaanu ka faa'iidno ah oo cad marka laga yimaado 20 business 10 business 5 business kilo tirada businesska wali ma hubtaan intaad heli doontaan inay boqol noqon doonto inay 5 noqon doonto laakiin ma idin caddahay shayga marka la soo iibsado caadi ahaan ganacsi ahaan waxaad sidaa boqolkiiba intaasaa faa'iiday ah marka qaab saas wali miyaad u dejiseen haddaad dejiseen maxaad ku base garayseen taas waa mid qodobka labaad wax tijaaba ood ilaa hadda samayseen miyay jirtaa iyadaan shaqadii toos u qabanin oo dee haddaad bilowtiin laakiin fikrad intood dad u tagteen aad u bandhigteen iyo wax idinkaga soo noqdo caqabada ama soo dhaweyna ood nala wadaagi kartaan miyay jirtaa mahadsantiin koobaad ah businesskiina maxaad profitka aad ku qiimo cad ma jiraad ku dhufsateen marka laga yimaado tibiska businesska horta marka hore aad xisaabsanaysa inta profit ka soo galaysa marka hore aad ku xisaabsantaa kharashka aad galayso isla markaana aad ogaataa profitka kaaga soo noqon kara inaad ku khasaari karto inaad ku guuleysan karto marka anagu markaan estimation ka sameynay waxaan iska sameynay ma aha pricing sideedaba horta waxa gooyay markaad goobtii aad dhex tagto sidaan hore u sheegay oo aad qiimeysaan intee aad kala heshiisaan qofkii fadhiya markaad aragtaan office-kaaga intaas uu baahan yahay shaqaalintaas saacadaha suu qaadan karaa estimationka go'aan ee cadaanka kaas lagu sameyn karaa marka anagu estimationka guud aan imika sii qaadanay wuxuu yahay in aanu $100 small offices ko kale inaan $100 baan u qorsheynay inaan ku nadiifino saddeed waxaan u janjeernaa anagoo wax aan ka baxsan de aan kuma nadarin inaan $300 meel ku nadiifino $250 meel ku nadiifino waxaan u janjeernay qiimaha kuma weydiin $100 boqolkiiba intee faa'iido aad ku xisaabtamaysaa salahan ama 300 iga qaad ama 200 iga qaad ama 100 boqolkiiba 20 boqolkiiba 20 tamam 20% baan ku dhufsanaa okay su'aasha labaad haddaan imaado horta yacni fikir markaad sameynaysid ama waxaad soo bandhigaysid marka hore yacni waa inaad u kuurgashid xaaladda yacni iyo baahida taagan meesha ee kugu kalifaysa imika haddaad doonaysid wax ikhtiraacdid yacni waxaad eegaysaa maxaa kugu kalifay qofna wax intuu iska seexdo ma dhaho waxaasan caawa haya laakiin baahida taagan markasta waa inaad daraasiisaa goobo waan tagnay yacni sidee goobo markaad tagtid oo kale yacni dadkii waxay kuu arkayaan dadkeenu markasta waa iska dad adigu yacni kuma arkayaan dee ama kusoo dhaweeya ama kusoo dhaweyn laakiin markasta wax qariiba bay ku arkayaan hase ahaatee waan tagnay damal hotel oo kale aan tagnay oo yacni ay xafiisyo ku yaalaan sidoo kale damal hotel oo kale waxaan kusoo aragnay ama yacni aan aragnay oo yacni serviceka iyaga noo fududeeyay inaanu keegno company-ga waxaa jira nin roofer sito oo subaxii intuu soo jarmaado u nadiifinaya meeshii waa individualkaas iyagu u shaqaynaya goobahaas oo kale waan tagnay sidoo kale waxaan xog ka helay ama baanay Australian school la dhaho oo isaguna baadhayay yacni intuu ku daalay qofkan la xisaabtankiisa inta la xisaabtamaysid ee aad jiidanaysaan ee uu maqnaanayo ee ayaa waqti ka qaadanaysa maca iskuulkaas oo kale yacni waxaan daraasinay ama xog ka helay inuu yacni company-gan oo kale u baahan yahay ama u baadhayay sida awgeed baahiyo badan oo jiraan rabnaa inaan ku daboolo tusaale ahaan qofka idiin shaqaynaya kolley dumar bay u badan yihiin qofku imisa meelood buu ka shaqayn karaa soo haddii tusaale ahaan meheradaad 100 ka qaadaysaan waxaa laga yaabaa inay 2 qol leedahay ama mararka qaarkood 3 qol oo yaryar soo qofku imisa meelood baad rabtaan inuu idinka shaqeeyo lacagta uu soo saarayo beer qof intay noqon karaysaa halkii Ismaaciil bay ku sii daba socotaa maxaa idinka soo hari kara markaad clean materialskii iyo alaabtii ama agabkii aad wax ku sameeynayeen iyo ciddii galaysay aad isla eega tusaale ahaan oo kale haddaad 5 meelood heshaan imise qof baad shaqaalaysiinaysaan ma aragtaa number 2 security-ga
aad ku celceliseen sidee baad u damaano qaadi kartaan qof bini aadana alaab kamaradaasoo kaloo miiska dul saaran ayaa laga yaabaa inay saa u riixdo oo ay jabto $1,500 $2,000 riskigaa ma idin muuqdaa mase u bereeraysaa tan ugu dambaysa ah sidee baad u damaanad qaadaysaan qofkii inuu geysto horta dhibaatada la geysanaya laba mid bay noqonaysaa in meeshii uu xaditaan imaado oo assetskii ama information meesha ku yaalay office-ka in la xado talabaadna waxa weeye inuu wax burburaan ama ay hanti burburto sidaad sheegayso kale horta marka koobaad markaanu shaqaalahan anagu qaadanay as a company waxaanu ka rabnaa inuu noo keeno damiinul maal sababtoo ma jirto shaqaale meel la geliyo ilaa aad qof damiina ama backgroundkiisa aad raacdaanu jirin damiinul maalkaasi wuxuu damiinad qaadaya wixii dhibaato uu geysto ama uu xaditaan haday noqoto wixii ula bareero kale inaanu ka qaadno haday noqoto waxyaabaha yarar kama ah ku dhaca waxaanu ka company ahaan waxaanu ka caawinaynaa qofkaas inaanu dhibaatada aanu ka gudno laakiin se maaha wax kasto dhibaato kasto uu geysto qofka noo shaqaalihiina anagu korka u qaadanayna si company taasi riskiga ugu culusaanaya way su-aasha ugu dambaysa mar kastoo ganacsiga la bilaabayo dadku waxay xisaabo qaldan bay isku dhuftaan hadhowna waxyaabaa kusoo baxa halkan imika qoraalkiina waxa ku cad in operating expenseska ama kharashka billaha ee gelaysaan uu yahay $1,900 sidoo kale waxa sheegteen inaad samaynaysaan ama filaysaan inaad samaysaan iib ah $3,800 halkan kuma cadda $1,900 kharashka xagga hore startup-ka waa ku darteen tusaale ahaan qalabka iyo waxyaabaha loo baahan yahay ay ka mid yihiin tusaale ahaan gloveski iyo waxyaabaha lagu clean gareynayo wax $1,900 ee halkan ku jira kuma jira kharashkaasina wuxuu u muuqdaa mid mar walba joogto oo la isticmaalayo oo marka uu koowaad una aan la soo iibsanayn miyaan la odhan karin uu idin dhuuntay kharashkaasiyo waa ismacaashtiiseen durba $1,900 ee running business-ku bishii ku soconaya haday noqoto transport haday noqoto fuel-ka iyo waxa maya su-aasha waxa weeyaan tusaale ahaan hawshii baa bilowdeen marka bilowdeen $1,900 waa salary waa renti waa maxay waa waxyaabaha noocaasa waxa hawshii baa 20 company baa wax idinka dalbaday 20kii company wax idinka dalbaday waxan ay isticmaalayaan aad wax ku buufinaysaan iyo galfska iyo waxyaabaha ilaa mar walba meelidin ma yeelaan oo markii uu horeysun baa iibsateen miyaanay idin dhuuman oo ay kharashkan maadaama aanay ku jirin aanay faa'iidadiinii iyo goynaynin okay marka hore markaan qalabkan iibsanna sida meesha ku cad ma aha wax mar kaliya ama billa ku dhamaanaya imka waxa ku cad mid kasta inaanu tiro badan aanu iibsanno tirada badan waxaan ugu tala galnay inaan bisha markay dhamaato baan la oran ama waxa go'ay masaxaadiha ama waxa go'ay qalabkan baa go'ay kolba suuqa loo yaacay sidaas marka hore aan ku tala galnay qalabka aanu soo iibsanay tiradiisu way badan tahay haddaad u fiirsato shaambo oo kale halkan kugu qoran shaambooga oo kale imisa bilood baad haysanaysaa ilaa waa kharasho marka bisha labaad ba hadii intu shaambooga ka dhamaado dadana u baahato $1,900 kharashka ma noqonayo uu ka badanay marka ma ku tala gashay ama imise bilood buu qalabkan waxaan ugu tala galnay markaan tiradan aan goynayna inta xabaan soo iibsanayno inay nahayaan 4 bilood 5 bilood ugu horeysa oo waxyaabaha yar dhamaan kara waxyaabaha qaar dhamaanin ba jira sida qalabkan loo adeegsanay lagu wax lagu masaxo ayagu muddo badan nahaynaya marka sida company waxaan ugu tala galnay 4 bilood ama 3 bilood ba in hal mar loo safro marka kaana waan ku sii tala galaynaa dhigaalkeedaan u sii dhiganaynaa aad buu mahadsan kooxda super clinic company oo ka socotay jaamacadda Badar aad baan ugu mahadnaqayaa hibe iyo amaal waxaan jecelahay halkaa waxa ka soo baxday timekoodii wuu dhamaaday minutes halkan waxa marmar dhici kartay in su'aasha la yar dheeraato ama jawaabta la dheeraato waxaan jecelahay inaan gudidii dib ugu celiyo waxay marayaan qiimeyntii labaad bay marayaan amaliyo diir taagnaanaysan iyo hibo waxaan weydiin doonaa qiimeynta koobaad Ismaaciil Maacad baa ku bilaabaya Ismaaciil markaad aragtay bandhiga ay sameeyeen sida isku difaaceen ganacsigooda u difaaceen ardayda halkan taagan maxaad iska bedelay qorshahaagii hore iyo qiimeynta hore bixisay su'aalihii iyo bandhigii markaan dib u qiimeeyo 10 kale aan ugu daray 10 kale ayaad ugu dartay ma sha Allah Cabdiraxmaan markii aad eegtay qiimeynta kooxda super cleaning iyo sida isku difaaceen iyo su'aalaha aad weydiisay iyo jawaabihi ku siiyeen maxaa ku soo baxay 70 maan ka dhigay 70 baad ka dhigtay waad ku dhisay absolutely markii hore waxaad haysay 60 baad haysay 10 baad ku dartay waa tahay Cabdi Yusuf Aar oo qiimihii ugu sareeyay markii hore bixiyay 70 buu bixiyay Cabdi markaad aragtay jawaabihii iyo ardayda difaaceen ganacsigoodii iyo habka uu faa'iideysanayo maxaad iska bedeleen natiijadii hore
haddaan dib u qiimeeyo halkoodii horaan ku daayay waa tahay waxaan jeclaan shacabka weli sii sawirtayaan wareegga saddexaad inta inuu gudbin doonaa waa bangiga caalamiga ah Premier Bank oo barnaamijka si toos ah u maalgeliyay iyo dhammaanba xubnaha guddiga halkan kaga qayb qaatay barnaamijka ku dhaafaya kulanti dambe oo xiiso badan ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaal safarkaygii turkiga saacadaha ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodagii ilbaxa ahaa si kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba dira iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel